cudurkan marka daaweyntiisa waxaa ka muhiimsan ka hortagiisa. marka bulshada wacyi guud horta cudurkan waxa uu yahay iyo sida la isku qaadsiyo iyo calaamaadkiisa inay fahmaan. waa marka sidee la isku qaadsiyaa cudurkan waa cudur lagu kala qaado waxa loo yaqaan air droplet. qofkii tusaale ahaan qof qaba cudurkan calaamadaha lahaado mase yuusan lahaanine in uu qufaco tusaale ahaan gacmihii kale uu ku qufaco ama uu ku hindhiso ama uu meel surface ah uu dhicaankii sankiisii afkiisa markii uu hindhisa ama qufacay ay taabtaan meelahaas markii ay taabtaan kadibna qof caafimaad qaba hindhisadii dhibcihii kasoo baxay inuu baytajo qaado taabashadaas marka meeshii uu ka taabtay ama dhibcihii soo baxay qofkii kale uu jiido ay saas ku gaaraan ama gacantii markuu meeshii ku taabto oo wejigii ama indhihii iyo afkii iyo meelo lamida iyo sankii uu gaaro saas ayuu cudurka lagu qaadi karaa. marka qofka haddii uu fahansan yahay cudurkan sidee lagu qaadaa calaamaadkiisii waa maxay sidee looga hortaga uu fahansan yahay bulshada waxaan rabnay inaan ku wacyigelino waa intaas. sidee marka qofka haddii uu fahansan yahay qaabkii lagu qaadayo sidee muhiima ama uu ugu hortegi karaa cudurkii. waxa ugu muhiimsanay looga hortegi kara waxay tahay nadaafadii guud in lagu dadaalo. tusaale ahaan qofkan cudurka qaba ama qofka kaleete ag fadhiya inay ku dadaalaan in wadada ugu muhiimsan cudurka lagu kala qaadayo oo neeftii iyo qufcii hindhisadii iyo gacmo taabashadii wixii ahaa inay iska ilaaliyaan. sidee iska ilaalinayaan tusaalahaan qofki inuusan ku qufcin ama ku hindhisin gacmihii xusulkiisu saas u laaban oo kale uu ku qufaco ama tiishu uu soo qaado kadibna maradii uu tuuro. in qofkii kale uusan toos ugu hindhisin ama uusan ugu qufcin. in gacmaha si joogto ah uu saabuun ugu dhaqo ugu yaraan nus daqiiqo gacmihii saabuun iyo biyo ugu dhaqo ama disinfectantiska gacmaha lagu nadiifiyo isaga nadiifiyo. wacyigelintaas guud oo ururka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo baraha bulshada dhan ku jira iyo fariimo kuwaas oo kale oo gaaban loogu talagalay bulshada inay raacaan waa waxa ugu muhiimsan ee aan rabno. wacyigelinta marka waxaan rabnaa qofkii hadduu intaas u yaqaano asiga ayaa ay marka dhankiisa ay kubadda soo jirta. asiga waxaa laga rabaa inuu mas-uuliyad iska saaro sidii uu u dhaqangelin lahaa badbaadintii nafsadiisa iyo badbaadintii bulshada.